waan idin salaamay saaxiibada qiimaha badan ee channelkeena ku xiran meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka aflaam turarka ugu dambeeya inta badan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa qodobada waqti xaadirkaas taagan sida daraadda intaan gudu gelin barnaamijka haddii taa markii kuugu horreysay soo booqanaysa channelkeena waxaan kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale iloogan inaad muuqaalka laga noo saarto waxaa kaloo idinku codsanaa saaxiibada waxaan sameeyay channel kaliya ciyaarahan kaga hadli doona sidoo kale commentiga ayaan biin ku qaban doona linkigiisa waxaan idinku codsanaa channelkaas kalena inaad subscribe noo saartaan aan ku bilaabno qodobkeena kuwa saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Ram Jaran ayaa ambaqaadi doona Britolo Dulaana gaarsiiyay filimkiisa weli magac loo bixin laakiin lagu magacaabo RC15 loola jeedo Ram Jaran filimkiisa 15 sidoo kale duubista filimkan jadwalada kale waxay ka bilaaban doonaan gobolka loo yaqaan Vizag sidaan ka warqabnay ninkan saaxiibada qiimaha badan filimkiisa ugu dambeeya la daawado waa Trevor Arkaso blockbuster u noqday inkastoo filimka ajariyaha hadda tiyaatarada ku fashilmay uu door ku lahaa filimkaas kaliya caawiyo ku ah sidoo kale mas'uuliyadda xagga hogaaminta aabihiisa ayaa lahaa laakiin ninkan filimkiisa ugu dambeeyay uu hogaamiye ka ahaa waa Trevor Arkaso noqday double blockbuster sida daraaddeed ninkan mashaariicda kale gacanta ku hayso qabayda ka ay dhameystirnaa sida daraaddeed waxa leeyahay hadda filimkan RC15 duwistiisa Britol waxay ka bilaaban doontaa gobolka loo yaqaan Vizag filimkan jadwalkii hore waxaa lagu soo dhameystiray dhankaasyo gobolka loo yaqaan Amritsar oo dalka Hindiya ka tirsan haddana balaanka qorshaha wuxuu yahay tiimka dhex ku sugan dhankaasyo gobolka Vizag Britol duwista filimka RC15 jadwalada xiga halkaas ay ka bilaaban doontaa saaxiibada qiimaha marka laga soo tago Ram Jaran filimkan waxa atirsho kuwad ka ah gabar lagu magacaabo Kiara Advani sidoo kale filimkan waxa qarash gareena ninka caanka lagu magacaabo Dil Rajo waxaana director ka ah filimkan ninka lagu magacaabo directorka Shankar waa nin awood badan ninkaasi Tamilkana waa laga dambeeya sida daraaddeed waxa kale la ogaaday saaxiibada Ram Jaran filimka inuu ku matali doono wax loo yaqaan double role ama laba door ay filimkan ku matali doona filimkan RC15 waa filim ban India min tuulada magaalo ay laga daawan doono maadaama hadda superstarka uu noqday ban star ayuu noqday xil saaxiibada qiimaha badan ninkan gobolka Telugu ka soo baxay xidaabka Telugu banaanka ayuu ka imaaday maadaama hadda star ka dhaxay dalka Hindi ayuu noqday sida daraaddeed filimka RC15 waa ban India sida daraaddeed guddoostana Britol ay ka bilaaban doontaa jadwalka dhankaasyo Vizag markaana saaxiibada qiimaha badan waxaan update ka haynaa filimkii weynaa Beastie filimkan waqtiga OTT lagu soo fasaxay ayaa shaac laga qaaday sidaan ka warqabna filimkan waxa hogaamiye ka talaabi Vijay sidoo kale waxa tirsho kuwadka gabar lagu magacaabo Pooja Hajin saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa kale door muhiim ah ku leh ninka lagu magacaabo Yoga Babu inkastoo filimkan tiyaatarada box office ku fashilmay sidoo kale wuxuu noqday filim guul dareys oo dadka qaatay xitaa wuxuu kamid ah filimada ugu liitay ugu sheekada xumaa abid uu la imaaday ninka lagu magacaabo Talaabi Vijay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa gacanta ku dhigtay shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Netflix sidoo kale waxa laga daawan doonaa taariikhda markay ku aasaysan tahay 11 bisha May aan ku jirno ayaa barta Netflix laga daawan doonaa sida daraaddeed waxaan rajayn doonaa qoliyaha aflaam turjuma inay filimkan si dhaqso noogu soo turjuma maadaama aan xiiso u qabna ninka lagu magacaabo Talaabi Vijay sida daraaddeed saaxiibada meel ku qorta filimkan uu hogaamiye ka yahay Vijay 11 bisha ayaa barta loo yaqaan Netflix laga daawan doonaa dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxa akhbaar idinkaan ninka lagu magacaabo Vintage sidaan ka warqabnay jalaaga asna waxa u diyaarsan filimkiisa weyn lagu magacaabo F3 kaasoo la daawan doono 7 bisha May akhbaarta cusub waxay tahay ninka lagu magacaabo Vintage wuxuu soo dhimay wax loo yaqaan Diyuminka ama codeynta filimkiisa ayuu soo dhimay sidoo kale filimkan waa filim shactire jahwareer iskugu jira sidoo kale ogaada filimkan waxa qarash gareena ninka lagu magacaabo Dil Rajo sida daraaddeed filimkan F3 9 bisha ku jirna waxa laga soo bandhigi doonaa wax loo yaqaan teaser ama goosgoos ayaa laga soo bandhigi doonaa sida daraaddeed ninkii Vintage ah codeynta filimkiisa ayuu hadda dhameystiray kala saaxiibada qiimaha badan waxaan akhbaar idinka haynaa wiilka lagu magacaabo Ayushman Quraana ninkan waxa u diyaarsan filimkiisa lagu magacaabo anig waana film action iyo trailer iskugu jira sida daraaddeed qabarka jir wuxuu yahay filimkan wax loo yaqaan teaser ama goosgoos ayaa laga soo bandhigi doonaa sida hadda shaac laga qaado filimkan anig goosgooskiisa waxa la soo bandhigi doonaa Britol oo taariikhda ku aasaysan tahay 5 bisha May ayaa la soo bandhigi doonaa sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la daawan doonaa 7 bisha May ayaa laga daawan doonaa taasoo ka dhigan filimkan in uu yahay film aad loo wada sugay maadaama uu hogaamiye ka yahay wajibadanaha Bollywood qaanin ka door walba sameyn karo ninka lagu magacaabo Ayushman Quraana sida daraaddeed Britol ayaa filimkan teaser ama goosgoos laga soo bandhigi doonaa markaana saaxiibada qiimaha badan waxaan abadi ka siin doonaa filimkii weynaa lagu magacaabo Trevor filimkan weli asal tiyaatarada uu ka degi lahaa sidoo kale 40 maalmood ee tiyaatarada gudaha Hindiya daafaca caalamka saaran yahay waxa isla fiirin doonaa filimkan wax loo yaqaan Wallood Gross ganacsigiisa dibadda dal halka uu maray sida hadda shaac laga qaado filimkan ganacsigiisa guud wuxuu soo xareeyay 125 kor ayuu soo xareeyay waxaan shorta ka hore qolyaha jiradaha qayb filimkan waxay ka heleen saami gaara 605 kor ayay ka heleen ogaada marka horna filimkan Trevor wuxuu ku iibsadeen lacag gaarayso
451 karoon taasoo ka dhigan filimkan macaash xad dhaaf ama profit gaaraya 152 karoor ay ka heleen sidoo kale filimkan natiijada hadda wuxuu taagan yahay double blockbuster ayuu noqday sidoo kale waxa la rajayn doonaa saaxiibada qiimaha badan filimkan Trevor R dhawaan in OTT lagu soo fasaxo sidoo kale saadaasha waxay tahay filimkan 20 ama 28 bisha May in OTT lagu soo fasaxo doon laakiin wali filimkan tiyaatarada ayuu ka gadmayaa saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Today History maanta oo kale aflaamta la daawaday maanta oo kale xalada filimka rugacdaayasha iskugu keenay waa filimka lagu magacaabo 102 not out filimkan waxa la daawaday 4 May 2018 hogaamiyaal waxa ka hayeen Amitabh Bachchan ninkii geeriyooday lagu magacaabo Rishi Kapoor sidoo kale filimkan waxa director ka Umesh Qulla qof lagu magacaabo saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la saartay tiyaatar gaaraya waxaa la saartay tiyaatar gaaraya aan ku celiyay 1300 tiyaatar ayaa laga daawaday sidoo kale filimkan waxa lagu qarash gareeyay miisaanad gaarayso 35 karoor ayaa lagu qarash gareeyay cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 52 karoor ayuu soo xariyay qolaa cajaladaha qayb filimkan waxay ka heleen saami gaaraya 23 karoor bar ay ka heleen sida daraaddeed natiijada filimkan 102 not out wuxuu noqday samhid ayuu noqday filim guuleysta ayuu noqday flopka ayuu xoogoo ka roon yahay sidoo kale filimkan waxaa tigid u goostay saaxiibada qiimaha badan gaaraya 4,117 qof ay tigid u goostay shaleemada ka daawada kale saaxiibada qiimaha badan Today History hadan soo qaadan maanta oo kale aflaamta caanka la daawaday maanta oo kale waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Jannah 2 ayaa la daawaday filimkan waxa la daawaday 4 May 2012 ayaa la daawaday hogaamiyaasha markaan fiirna filimkan waxa hogaamiyaal ka ahayeen Imran Hashimi iyo Randeep Hooda ee gabadh lagu magacaabo Isha Gupta sidoo kale filimkan waxa producer ka nin lagu magacaabo Mukesh Bhatt ayaa saaxiibada qiimaha badan producer ka nin lagu magacaabo Kunalna wuxuu ka ahaa director ayuu ka ahaa sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan muusigada waxa ku raaxaystay nin lagu magacaabo Bretam ay muusiga ku raaxaystay markaan fiirna filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa la saaray tiyaatar gaaraya 250 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qarash garay filimka miisaanad gaarayso 20 karoor cumraantiis asna filimka wuxuu soo xiray lacag gaarayso 43 karoor ayuu soo xiray qolyaha cajaladaha qayb filimka waxay ka heleen ku dhawaad lacag gaarayso 23 karoor sidoo kale natiijada filimkaas wuxuu noqday samhid ayuu noqday markaan fiirna filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa tigid u goostay sida diiwaan gashan dad gaaray 6,162 qof ayaa tigid u goostay shaleemada ka daawatay sidoo kale markaan fiirna lacagta oo kana 43 karoor sicirka maanta dib lagu jaangooy wuxuu dhigantaa saaxiibada qiimaha badan sida hadda diiwaan gashan lacag gaarayso 59 karoor ay u dhigantaa sicirka maanta hadii sicirkaas maanta lagu jaangooy lacagta hadii sicirka maanta lagu jaangooy lacagta 43 karoor wuxuu dhigantaa 59 karoor sida daraaddeed filimkan Jannah 2 natiijada wuxuu noqday samhid ayuu noqday wadkuma santeen saaxiibada qiimaha badan daawasho adawtan muuqaalkan waa halkaas inoo dhan barnaamijkeena khabaaraadka aflaamta turka ugu dambeeyay haddii taa markay kuugu soo boqonayso channelka subscribe noo saar sidoo kale loobin inaan muuqaalka laag noo saarto aragtada comment noo qoreb hadda kamid saaxiibada horno la joogo muuqaalka share si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biran inta barnaamijkan barnaamij la mid ku kulmayno sidaas ya amaana Allah salaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh